Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, noo taaban calaamadda subscribe-ta. Sidoo kale, haddii aad naga daawanayso aaladda TikTok-ga, fadlan noo taaban calaamadda follow-da. Halkan waxaan ku eegi doonaa barnaamij kale oo ku saabsan saaxiibka wanaagsan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo noo taabo calaamadda subscribe-ta. Saaxiibka dhabta ahi waa qof si daacad ah kuugu garab istaaga xilliyada wanaagsan iyo kuwa xunxunba. Waa qof ku fahma, ku ixtiraama, oo aan dan gaar ah kaa lahayn. Saaxiibka dhabta ah waa ku daacad, kuma khiyaameeyo, kaamana been sheego. Waa taageerahaaga, wuu ku garab taagan yahay guushaada iyo guuldarradaadaba. Waa mid aamin ah, sirtaada wuu dhowraa oo ma faafiyo. Waa mid dulqaad badan, wuxuuna aqbalaa qaladaadkaaga, wuxuuna kugu toosiyaa jidka wanaagsan. Wuu ku dhiirrigeliyaa, wuxuuna rabaa inaad horumar gaadho oo aad guulaysato. Wuu kula farxaa, kugumana xaasido guushaada, balse wuu kula dabaaldegaa. Wuu ku dhaliilaa, wuxuu kuu sheegaa khaladaadkaaga si aad u hagaajiso. Wuxuu garab kuu yahay xilliyada adag, ma ahan qof kaa taga marka aad dhibaato ku jirto. Waa qof la isku halleyn karo haddii aad u baahato. Waa mid kuu diyaar ah, wuxuu ixtiraamaa fikradahaaga iyo dareenkaaga, kuguma qasbo waxaadan rabin, wuxuuna qadariyaa doorashadaada. Waa qof si siman ula dhaqma dadka, waa mid bulshada si wanaagsan ula dhaqma. Wuxuu kuu yahay sida qoys oo kale. Mararka qaar, saaxiibka dhabta ah wuxuu kuu noqon karaa kaagana dhowaan karaa xitaa ehelkaaga. Haddii aad hesho saaxiib leh astaamahan, waa inaad ilaaliso oo aad si la mid ah ula dhaqanto saaxiibka wanaagsan. Ma leedahay qof aad u aragto sida saaxiibkan oo kale? Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo taabo calaamadda subscribe-ta. Haddii aad nagala socoto aaladda TikTok-gana, fadlan follow-da noo taabo. Waad mahadsantahay.